dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya uga digay inay faragelin ku sameyso doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo tixraacaya qoraalka ay xalay soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan habraaca doorashada Jubbaland ayaa loogu digay xukuumadda federaalka inay faragelin ku sameyso doorashada madaxtinimada Jubbaland. waxayna Puntland kula talisay in la ixtiraamo shuruucda gaarka ah oo ah in dowladaha xubnaha ka ah federaalka ay si madax bannaan u soo doortaan cidda ay doonayaan inay hogaamiso. ugu dambeyn waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in dalka Soomaaliya kasoo kabanayo khilaaf siyaasadeed iyo colaado ragaadiya dhismaha hanaanka dowladnimo. sidaa darteedna dowladda Puntland waxay u soo jeedisay in dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah inay ka fogaadaan wixii baalmarsan dastuurka oo ka dhalan kara colaad iyo kala qaybsanaan horle. maamulada Jubbaland iyo Galmudug ayaa lagu wadaa in bilaha soo socda lagu qabto doorashada madaxtinimo, waxaana dowladda federaalka ay dadaal ugu jirtaa inay qayb ka noqoto. waxaana xusid mudan in doorashadii Puntland ee January 2019 ee dowladda federaalku aysan wax dooro ku lahayn, iyadoo laga mamnuucay in madaxda dowladda federaalku ay yimaadaan deegaanada Puntland inta ay doorashadu socotay. Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayla, telefishinka caalamiga Ariel TV, magaalada Garowe.